إنا لله وإنا إليه راجعون. وحين جوجنا قبورها فانتا ودن كان فيلان waxaa halkan maanta ka dhacay aaskii ugu weynaa dadka Finland in badan joogay sida ay sheegeen. waxaa halkan lagu aasay qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 5 ruux. wax yar aan cajalada dib u celiyo si qaarkiin aad ula socotaan amaba aad ula qabsataan bilowga dhacdada. waa berigii 3 Maarso ee sanadkan 2026 waxaa ka dhacday Finland dhacdo muruga leh oo si weyn u naxdin gelisay bulshada kadib markii qoys ka kooban 5 ruux oo isugu jiray aabbo, hooyo iyo 3 caruur ah ay ku geeriyoodeen dab la qabadsiiyey daartii ay degnaayeen. dabka waxa uu ahaa mid si ulakac ah loo daaray iyadoo falkaasi lagu eedeeyey nin caddaan ah oo sida la sheegay marka hore rabay in uu naftiisa isdhaafsiiyo balse marka dambe ka tanaasulay go'aankiisii hore. qoyska waxa ay degnaayeen daarta dhismaha, ninka uu degnaa dhismaha ka koreeya. marka uu dabka qabadsiiyey gurigiisa waxa uu ballaqay albaabka kadibna waxa uu ku dhawaaqay in daarta uu dabka kacay. dabka oo si xawli ah u fiday, qoyska ayaa isku dayay in dhismaha ay bannaanka ka yimaadaan balse waxa ay waayeen fursad ay kaga baxsadaan dabka iyo qaaca ku faafay jaranjarta guriga. taas ayaa keentay geerida aabe xasan maxamed xasan, hooye xafsa cabdulaahi cusmaan, hudda xasan oo 8 jir ahayd, hanad xasan oo 6 jir ahaa, haaruun xasan oo 3 jir ahaa. nasiib wanaagsan waxaa qoyska ka badbaaday hidaaye xasan oo xilligaasi asbuuc dhalnayd. bismillaahi raxmaan raxiim. maantay waxaan u joognaa aaska familka oo Soomaaliyeed oo maantay aan ku aasnay faanta xaafadii ay ku geeriyoodeen. aadaan ugu xunnahay. tacsida wax la qaybsanaynaa ummadda Soomaaliyeed, qaasatan wax la qaybsanaynaa dadka familka ah oo arrintan ee taabatay. annaga jaaliyad ahaan aaday noo taabatay. xanuunkaana waa xanuun aan mataqaanaa aan waqti dheer tiiraanyadan ala noolaa doono. waxa kaloo jira inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago. maantay wuu noo xiran yahay ninkii dhibkan geystay oo mataqaanaa waalidkan iyo ilmahan guriga ku gubay. arrintaana waa ku daba jirnaa annaga community ahaan iyo aniga mahad ahaanba. waxaa xilaa cid kastan oo islaam ah mase qof Soomaaliyeed xilaa ka saaran. dadkan ku talagala loo gubay, gurigooda loogu gubay, dil caadi oo bareera loo geystay. booliiskana uu ku soo oogay 5 qofood oo Soomaaliyeed dilka loo geystana maaragtay insha Allah waxaan rajeynaynaa si cadaalad ah oo sinaan leh in maaragtay loo marayo xukunka uu ninkan lahaa. insha Allah aadaan ugu xunahay. maanta waa u jeedaan Soomaali maanta meeshan kuma harsana si aanan mataqaana kala harlayna loogu soo baxay. aadaan ugu faraxsanahay maanta inaad duugtii maanta Soomaalida wadanka Finland joogto meel walba ayna ku harin ee maanta ka soo muuqdaan ee la qaybsadaan xanuunkii familkan oo mataqaanaa qaasatan reerkan oo ka baxeen. maanta bishu tahay 18 waxaan u joognaa aaskii qoyskii ku geeriyooday gurigii ninka finishkii ku gubay magaalada Faanta. marka maanta aanu halkan ku aasnay dhammaantoodna waxaan leenahay Ilaahay ha wada naxariisto, samiriye imaanaha ka siiyo. ummadda Soomaaliyeed dhammaanteen iyo reer Finland samiriye imaan Ilaahay naga siiyo. dambiga dhacay ummadda loo geystayna insha Allah waan ku daba jiri doonaa, waan ku daba tagi doonaa, waan kula xisaabtami doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. dhacdadan ayaa muruga iyo argagax ku beertay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Finland kuwaasi oo si wada jir ah uga falceliyay. shacabka Soomaaliyeed ee Finland ayaa u sameeyay qoyskaasi aas ballaaran oo si heer sare ah loo agaasimay. waxaana ka soo qayb galay dad aad u tiro badan oo muujiyay tacsi, duco iyo garab istaag. dhacdadan ayaa noqotay maalin muruga leh oo aan si sahlan loo ilaawi karin, waxayna xasuus qoto dheer ku reebtay qalbiyada dadka, gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan wadankan Finland. Muniira oo ayadana daarta ku jirtay dabkana ka badbaaday waxay ii sheegtay in Hanad Xasan ay maalintaasi dhalashadiisa ahayd oo uu buuxiyey 6 sano. habeenkii marka la seexanayayna uu aad u faraxsanaa. Hanad iyo Haaruun waxaa lala aasay aabbahood Xasan, halka Huddana lala aasay hooyadeed Xafso.
waxay ku hoydeen gurigooda rasmiga ah. rabbi ha uga dhigo meel ay ku farxaan. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. sharmaake abuukar, warbaahinta qaranka, Helsinki, Finland.